Bilaal Bulshaawi oo ka hadlay markii ugu horeysay xaaladii adkeyd oo ka soo baxay kadib mar uu ku sugnaa hotel ku yaala isgoyska Banaadir ee degmada Hodan ayaa mar qura muuqaallo social media intiisa ugu badan lagu baahiyay ayuu kaga hadlay dhacdadii xanuunka badneed ee lagu dhaawacay. Fadlan daawada xogtan oo dhameystiran ayaan kula wadaagayaa bartamaha muuqaalkan. Like iyo subscribe noo saar muuqaalka kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Bilaal Bulshaawi oo ka mid ah samafalayaasha dhalinyarada isla markaana aad looga yaqaan geyiga Soomaalida oo dhan ayaa mar qura muuqaal iska soo duubay maanta inta ugu badan barta internetka ayuu haystaa. Bilaal oo ka hadlaya xaaladii adkeyd ee dhaawaca markii lagu dhaawacay isgoyska Banaadir maadaama uu ka mid ahaa dadka caanka ka ah barta social media. Wiilkan loogu magac daray madaxweynaha TikTok ee iskiis isku magacaabay Bilaal Bulshaawi wuxuu qayb ka ahaa dhalinyaro badan kuwaas oo ku mideysan bahda TikTok isla markaana wuxuu ahaa hogaamiyaha ugu horeeya ee magacaabay xildhibaanada TikTok. Laakiin mar qura ayaa lagu dhaawacay isgoyska Banaadir xilli ay ka shaqeynayeen hotel meesha ku yaalo banaankiisa hore. Dhaawaca kadib ayaa Bilaal waxaa loo qaaday isbitaalka ku yaalo degmada Hodan ee Digfaar kaasi oo halkaas lagu dabiibayay muddooyinkii ugu dambeeyay. Inkastoo maalmihii dambe ay soo baxayeen hadallo kala gedisan kuwaasi oo u badnaayeen in dib qaliin loogu qaadayo dalka dibadiisa. Laakiin Bilaal ayaa xal soo hadlay isla markaana waxa uu sheegay in Alle uu siiyay caafimaadkiisa dibna u helay. Wuxuu ka sheekeeyay inay dhaawaceen kuwa caadifad kala dhaxaysay isla markaana markii dhaawaca loo geysanayay oo afka dhulka gashay durbana ogaalkii uu ka tagay. Bilaal Bulshaawi ayaa sheegay in xaaladaasi aysan ahayn mid laga sheekeyn karo. Markasta hadalka wadana waxa uu leeyahay mararka qaar waxaad gelaysaa xasuuso dheer. Allah ayaa ii naxariista ayuu leeyahay oo iga badbaadiyay xaaladii adkeyd. Waxay rabeen ayuu yiri inay nafteyda galaaftaan laakiin ma aysan qornayn ayuu yiri. Mar qura ayaa gabar ashaatanka ii qabatay kadibna waxaan dhowr mar ku celcelisay ashaatanka durbana markaas ayaa ugu dambeysay ogaal oo waa miir daboolmay. Kadib 12 saacadood kadib ayaan isbitaalka imaaday. Markaa kadib ayaa ogaalkii ii soo laabtay. Aad ayaan mar kale Alle ugu shukriyay. Laakiin kuwa dhaawacan ii geystay ayuu yiri waxay ahaayeen kuwo badan oo caadifad igala dhaxayso. Inkastoo uusan sheegin magacyada saxda ah, haddana waxa uu yiri waxaan leeyahay reer iyo helo kuwaas ayaan si sax ah ula wadaagi doonaa kadibna xisaabtanka ayaa halkaas ka bilaaban doona. Laakiin markasta wuxuu ku celcelinayay in Allah uu siiyo caafimaad isla markaana qof kasta markii tiisa ay gasho oo dhimanayo.